You know? Kisah bisa horseena guriga dishay dikahabo kumarata kisah bisa horseena guriga dishay. Waayahay daawadayaal laba xogoo yaryar ayaan rabaa caawa inaan idinla wadaago wax badan ma aha waxa weeye qolooyinka sirdoonka Itoobiyaanka ayaa waayihii dambe waxay ku mashquulsanaayeen inay handidaan oo mataqaanaa ama afduubaan wariye samafale Cabdimaalig Muuse Coldoon ninka la yiraahdo Coldoon ayay rabeen inay afduubaan waa uu hirgeli weysay muddo isku mashquulayeen marka hadda waxaa markuu maqnaayay waxay tageen Hargeysa maamulka Muuse Biixi la kulmeen waxay ku dhaheen annaga wax kasta idin qabanaa wax walba waa idin hagaajinaa say ku dhici weysay inaad mataqaanaa Cabdimaalig Muuse Coldoon oo maalin kasta mataqaanaa Hargeysa annaga naga dhaliilo idin kale aad soo qaban weysiin ama idinka xiri weysiin ama annaga noo keeni weysaan saan u xirno marka alay xaal waxa lagu heshiiyey على حال مملكة سوماليا waxay ku raadin Etoobiyaankii markii ugu horeyso oo soo laabto Cabdimaalig Muuse Coldoon ama waa idin xiriinaa 10 sanadood ama idinka idinku wareejinaynaa marka waxa weeye halkaas ay maraysaa Soomaalinimadii halkaas oo maraya muwaadinka dhulka soo isagu ma laha dhulka Etoobiyana yeesh maanta waxaynu maraynaa in warbaahinteennii afka dheereed Soomaaliyeed oo Itoobiyaanka ay u shaqeeyaan oo Itoobiya jijiye ay ka qaataan lacag laaluusha oo dhiiga muwaadinka Soomaaliya ay ka hadli karin halkaas marayna Soomaaliya maanta waxaynu maraynaa in samafalayaasheen iyo wariyaasheen ay deegaanadooda tiikirna cabsi ay ka qabaan Itoobiyaan maanta waxaynu maraynaa in kuwii farta lagu doorto iska dhaaf kuwii lacag lagu doorto kuwii fartaas lagu doorto Muuse Biixi kamid yahay in muwaadinka Soomaaliyeed iyo muwaadinka mataqaanaa Somalilandarka aba ay mataqaanaa yiraahdaan xabashiya loo dhiiba marka calay xal waxa ogaanaysaa qorshahaas waa socdaa Cabdimaalig Muuse Coldoon haduu daawanay waxa maqlay inuu qadar joogo waxaan leeyahay walaalo iqaamo ka qaado meelaha aad joogtid walaalo Muqdisho meelaha ha u dhaafin waxa weey wad ogtahay halkaas waxa kaaga horeeyaa qorshahaas loo digay haddii walaalo u baahan tahay meelaha kala dukumiintiga ku socotana dalkan aan joogay holafta ku siinay meengaliyo Britain arbacadan tagaynaa waa lagu siinayaa meengaliyo hada u baanta dadkaaga safarkooda ka shaqay dad gudaha kaaga shaqay samayso inta arinta wax iska bedelayaan ma taqaanaa walaalo gacaliye ha aadin Cabdimaalig oo hana yaraysanin Cabdimaalig oo ha aadin hana yaraysanin intay wax iska bedelayaan halka ha aadin walaalo hana yaraysanin انت حمر متقانا انت هرجيسو حبش اللي قول ديبي لها هذا حمر قرح قول انت كون دانتو ساسا كليه marka arintu waa sida waxa kale ayaa gudi Muuse Biixi dhalinyarada u codeysay ee dooratay ayuu maanta madaxa ka xiiraya food bal food meesha qamri baa lagu cabaya qaad baa lagu cunaya shid baa lagu cabaya rag iyo dumarkii tumanaya bal food wiilya maxaa u geeyay shabaab miya وطبتي شباب سيدا كم مقطع طبتي شباب كوي waxa soo socday webiga yaa weyn marka Coldoon walka ha tigina ku dhilaha inta shacabka Soomaaliyeed ina ku marqaateeyo iyo ina u sheegaan rabay waxaan imikana bal in ka soo qaadanaynaa faalo qoro waxaan raadinayaa ninka la yiraahdo caawo
xildhibaan mahad salaad ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa xabashi iyo kuwa u shaqeeyaba ciidda sow anigu malihi dhulku sow anigu malihi badda sow anigu malihi ninkii dhacay geeridu dhibaysaa waqtigii dhammaayo waan dhaqaaqi doonaa qofku yimid bay geeridu dhibaysaa xabashi iyo kuwa u shaqeeya shacabka dhalinyaro soomaaliyeed kacdoonkoodu waa soo dhow yahay hal ogaada xabashiyey badda sow anigu malihi dhulka sow anigu malihi waxay maraysaa Itoobiya inay samaysato wasaaradda gaadiidka badda wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda inay samaysto Itoobiya maraysaa waxay maraysaa inay dekeda berbera ku yeelato sheer tambooso ku yeelato sheer waan dhaqaaqi doonaa waayahay xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka ayaa waxa uu caawo si toos ugu bareeray inuu wixii jira sheego marka ayaa waxa uu ku qoray boggiisa Facebook faallo oo ciwaan uga dhigay Fahad iyo Farmaajo Qatar iyo Imaaraadka waxa uu leeyahay xildhibaan mahad salaad madaxweyne Farmaajo intii madaxweynuhu ahaa 2 jeer ayuu tagay dalka Imaaraadka Carabta 2 jeer oo uu tagay dalka Masarna waxa uu kula kulmay wasiirka amniga ee taliyaha sirdoonka Imaaraadka ilaa haddana ummadda Soomaaliyeed uma uu sheegin wixii ay ka wada hadleen isaga iyo wasiirka amniga iyo taliyaha sirdoonka Imaaraadka waxay ka wada hadleen ilaa hadda Masar Farmaajo shacabku uma sheegin ayuu leeyahay Masar marka madaxweyne Farmaajo waxa laga rabaa haddii Imaaraadka oo halis ku yihiin amniga Soomaaliya ama jiritaanka iyo midnimada madax bannaanida dalka inuu joojiyo safarada uu ku aaday heshiisyada hoose ee naloo sheegay inay socdaan xiriirkana u jaro Imaaraadka safiirkoodana eriyo Imaaraadka safaaraddoodana uu xiro waa haddii Imaaraadku ay dhab yihiin inay cadow ku yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada wuxuu ku yiri waa inuu joojiyo safarka uu ku aadaa maalin walba bala Imaarada u socdaa waa inuu safiirkooda eriya waa ka bax dalka waa inuu safaaradooda xiraa dhakab oo yiraahdaa safaaradda qarnimada halis ku tahay waa xiran tahay ayuu leeyahay Masar waa inuu intaas ku daraa uu leeyahay wuxuu leeyahay laakiin Mr Farmaajo kama yeelayno anaga ama kama yeelayno muddo madaxweyne kumana qanacayso ummadda Soomaaliyeed ee aad madaxweynaha u tahay in wiilka agaasimaha madaxtooyada ku ah ee u shaqeeya dalka Qatar u shaqeeyo leeyahay isagu laakiin wuxuu ka wadaa sirdoonka Qatar ka tirsan ka wadaa u shaqeeyo isku koobta sayidkiisa ee u shaqeeya dalka Qatar arkiisa lagu maamulo dalka halkaas aad kugu celi wuxuu leeyahay laakiin kama yeelayno muddo madaxweyne kumana qanacayso ummadda Soomaaliyeed ee aad madaxweynaha u tahay
in wiilka agaasimo madaxtooyada ku haya u shaqeeya dalka qatar agtiisa lagu maamulo calaaqaadka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo waxyaabaha kaleba in wiilkaas doonka qatar ka tirsan Fahad Yaasiin Xaaj Daahir la yiraahdo rabitaankiisa lagu maamulo dalka kama yeelayno shacabkuna ka yeeli maayaan ayuu leeyahay marka diiwaanka ka hadaba ugu dambaysay aan ku soo afgalay waxa weeye daal ala soo Facebook ku xirnay Facebook laga xiray hala tamaashada hala tamaashada Facebook laga xiray daal ala soo Facebook ila ka tartiib عيالاتنا عيال عرفت شخصان داري على فيسبوك حلو gumeystaha dhacayay geeridu dhibaysa waayahay maalmaha dhanba waxaad maqlayseen sheeka socotay dhigi kara wadani waayahay waxaad ogeydeen waxa dhacday facebookgayga ayaa waxa Fahad Yaasiin been xamar ka soo baxay wuxuu soo maray Turkiga waa la soconay dadka wuxuu ku yiri Xasan Garguurtaan kula kulmaya Turkiga iyo damo jadiid laakiin Xasan ma joogino caruurtiisu wuxuu jiray meesha la Tanzania beenina shacabku rabay inuu ku qadbo marka in Turkiga uu soo iska dhigay Turkiga yimid tarashido waxa wuxuu u gudbay dalka Qatar u gudbay قدر وتجي مركا قدر ممكن تجي وحيابيه وتجي كميد هاي فيسبوك دوره وذي يتويتر ولا هاي وكجي فلا أنها وكسح الله أنها هاي مركا قولي كمقابرات قدرين تو وكل لسان مقلي بل فيسبوك وحكي قبطة مركا وحي يقسمين أولي ريسك وحي يقسمين كلام حاوي وحلي هذا دوديس أتاك وحلي هذا DDoS أتاك وحلي هذا ومعناه هذا التهاي وحلو وصف الصحية ملايين IP أدريسيو ayaa waxa ku sameynaya codsiyo fara badan request kadibna serverka guud ayaa qalqal galaya oo linkiga ayaa qalqal galaya markuu qalqal galna waxay qasbaysaa Facebook intuu xadidi waayo waxa ku socda in la yiraahdo bahalkaaga ma taqaana ay iyagu u dhaco passwordkooda ama laga xiro laga xanibo bas aniga waxaan xarifan ku ahaa kuwa ay ka lacag badan muddo ay la dagaalayay marka akin dodis attack spams u socdo ayaran ka xeeladeystay wala xiriiray nimanka IT-ga ahay Facebook dhag waxay siiyeen waqtiqana wax oo cloud floor ko kalenta ah oo aan uga xeeladeysanayo oo aan isku qarinayo yani dhanba laygu arkeynin qolay kale security oo aan saaxiibanahay waa la hadlay
marka iyagana way la xeeladeeyeen ayana ka guuray meeshii ay ku socotay mataqana oo weerar ku socday marka seefar cusub ka degay marka seefar cusub ka degay ya waxaan arkay nimankiyo la soo xiriiray nin saaxiibanahay dhahayo ninkii hawada ka saarnay ninkii ma ka baxay hawada waa muddada aan kala guurayo on waxay markaas waxaan rabay nimanku fudud yihiin iyo ciyaalkooda inay dhahan dahar calas hawada ka saarnay waa burburinay cagtaan marinay ayran deactivate ku sameeyay maadaama habniyo iska baashaalay deactivate ku sameeyay deactivate markaa ku sameeyay waxa ka dhacay waa la yaabay waa ka xirnayay waa ilaa nimanku halkaas kaga taagana farmaajo waa la xiray iska hoobi ninkii waa la wixii qayr la waa la xiray wixii lacag la kala qaatay life yaa la soo galay waxa life lagu mashquulsanaa waad yaabaysaa wadaal aasooban ka xirna facebook ka xirna warkan ilaah baa wato waraa karaama seegina habaar leeyo kari waaye warkani adeer ilaahay baa wato burbuu ku tiisan yahay wuxuu ku tiisan yahay laa ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay qadir allah koon kan abuuray ayuu ku tiisan yahay ninkan daahir cali suuliye wax tuugo xoro qaa'imiin ay ka qaadayaan hawa yaraatay ma jirto haddaad isleedahay IT yaqaan qolayro dawladda yaro 500 qofna inagu kuwa malaayiin hasaa aan xiriir u leenahay gacanta u taagnaa oo ilaashanaya facebooka iyo website kan iyo emailada waxa arkaysiin dhan waa protection waa marka nimanka WhatsApp ay ku jabeen xalay dooska happy new year isku baashaalay magaalada maraayay saako iska seexday hadda marka soo gaarnay active ka qaaday active ka dhigay muraad dilaac caaw malaha dad badan lacagta laga goosan doona lacagta la siina laga goosan doona oo been sheegeen qof kasta oo facebook soo ataagereeya ha isoo sheego daqiiqad ama saacad ka hor weerarka intuu ku bilaabay aniga si oo free ah oo caawinayo seefar fiican u dejinayo protection u siinayo haddii website kaaga soo ataaga aniga soo sheeg email kaaga dad ku aragtay soo sheeg ana ka caawinaa waxaas iska iloow nimanka nacnaadooda sidoo kale dadka non profit organization ka ah waxaan barayaa sida loo sameesto profile back blue ah calaamada blue sida loo sameesto ayaan barayaa hoose fudud loo siinayo telefoonkooda bas ku activate gareynaya وايا هذا واحد يقول صلى الله عليه وحن دول يا عاون كهالله محمد عبد الله فرماجو من نقف كلام مدحوين الصوماليين صومالي وحموقة وكرا خلاف محلين كرا كرتم اللي هي مع عفمات قبا إن أنت كهالله الدنيا مردو مركا هذا يقول صلى الله عليه وحرم عينك كده كليب أسوأ كليب أهانو استمعان روا وحرم عينك يلا صالح لما مسألوك أو عدينا يا فرماجي إنه صبعنا أهين تقنا أهين إنه سهو قامين نغكرين دوايش كده أمره ذلك يا سيسو الصلاة وين حتى صلى الله عليه